waxyaabaha ugu muhiimsan oo la rabo in loo toog hayo laga war hayo mar walba waa dhaqanka dhaqanku saa la socotaan xuduud ma laha hamoodina jufadii uu hada jufi gaara mar walba duubta waa wax curfiga Soomaalida ku jira laakiin hawshiisu waa hawl ka madax banaan anu jufida duubtay ka mid maahi wabarka saas oo tahay maamuuska uu leeyahay xurmada uu leeyahay culayska uu leeyahay ahmiyadu bulshada uu leeyahay waa ka dheregsanahay waana midda aan ugu kaco imaam wabar Umar haduu inoo yimi munaasabadan iyo mid ka weynba waxaan qorsheeyay in loo abaabulo iyadoo bulshada reer Boros isku duuban iyadoo fahansan qiimaha uu dhaqanku leeyahay waxaan idinka mahad celinayaa mar labaad intiinaan isxisoo xilqaantay sida qiimaha leh oo dareenka leh oo Soomaalinimada leh oo halkaan u timaadeen oo barnaamijkan aad waxa weeye hadda aad qaybta uga soo noqoteen war badan oo aan meeshan ka sheego anigu ma hayo inagu ku aanashubi mayno maanta odaga wabarka inagu waa soo dhaweynaynaa tan iyo mid kale oo ka weynna waxaynu insha Allah rajeenaynaa in aynu dareenkeeda qaadno oo aynu soo dhaweyno hal mar shacabka loogu dhufto odaga Soomaaliya israacdo Soomaaliya noolato Soomaaliya tabdiis ma qaadi Soomaaliya noolato hay israacdo khayran maanta halkan waxaan ku calaamad saarnay ma ahanay waa ninka ku soo dhaweeyay calaamad saar maraan saarnay waxaan ku soo dhaweynay Cali Umar Ciise waxaan ku soo dhaweynay nin Soomaali ah oo ognahay inuu Soomaali yahay Soomaalnimadiisa lagu doortay oo dadkiisa fooda u ahayo baantana fooda u yahay Cali Umar waxa weeye nin la yaqaano miyiga muxuu ahay magaalada laga yaqaano Muqdisho markii la joogo Umar marka anaga hadanahay reer Boros waxaan wadanin meeshan dad marti anigu aan nimada on wada aqaan laakiin maanta waa wada naqaana soo dhawaantaanadu waxa way aqoon u yeelanay intuu nala joogo anaga hore uma aqoonin laakiin oo martiyan isugu nimid kulligaan qaxootiya markaas waxaan ogaanay Cali Umar inuu nin Soomaaliya oo intaanadaas martida wada yaani madaxna naga karaya in kasta Soomaali tahay oo Soomaali sadarteena waxaan leeyahay Cali Umar ha noolaado Soomaali ha noolaato kulligiin israac Soomaali israacdo ha wanaagsanaato waxaan leenahay abshir iyo khayrna loo barwaaqo aan hoo dambaysiyo Soomaaliya barwaaqo Allah hoo dambaysiyo wax badan ay qaxoodo soo gashay oo soo wareegtay nin dawladda ma qabta oo muslimiin oo islaam oo diinta islaamka yaqaanana Allah noo tahlo oo dawladda noo qabta korsay ku jirta Soomaaliya oo dhan waa u korsaynaysa madaxnimo laakiin anaga waxaan noo roonin diinta yaqaana oo diinta nagu dhaga oo diinta nagu hogaan ugu noqda noo roon maxaa islaamanahay waa maqasheen hindiyo inta Soomaaliya inta shabar Soomaaliya waa muslimiina say nus waa muslimiinta hindi waa muslimiinta ماشي مدلمه أنا دمين حتى هالحافظة كمية ما دمين هندي وأنا ويا مسلم قال يا هاي أنا سادرت أروح أرملا نكست أو سوماليا إنه نين دين له كلية دورتا أو دين له أو إسلام أو شنت سلاوة يقانا أو دين تودن كركا عيا نكاتر رمنا عنكو وعربنا أكلت نين سومالي سكانا نين سومالي سكانا رمنا أو سومالي مدايا رمنا مدايا نليدا إلهي مدايا كدغو مدايا الله كدغو مدايا الله كدغو رج يدمر سومالي هاسرعدو هو ناقصناتو هقرحناتو حل اسكسارتو حرنمada Soomaaliya xornimada Soomaaliya waxay xoogay rabtaa iyo xandho iyo la isugu daro aqli la isugu daro intaas Allah siiyo Cali Umar Allah siiyo intaas ilaa idinkiisa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo ay oo wabarkaanya aha magaalada Sweden noogu yimid awalna nooga tagay waa ku soo dhaweeyo haynaa waxaa soo dhaweeyay Soomaalidii oo joogtay Boros Sweden boqorkaanya soo dhawow
soo dhawow waana mahadsan tahay waxaan saleeyahay Soomaalidu dhegta u taagan dhulkeedii oo waxay isleedahay arxaaq soo noqon doona adaa ka yimid waxyaal badan inaan ku weydiinaan aan rabnaa u taagan ruux dhaasha ardegta u taagan ruux dhaasha duliya dheeman kowlahay dhegta u taagan ruux dhaasha duliya dheeman kowlahay dhegta u taagan ruux dhaasha araya saxara waa ku dhammaan badina waa ku sumowna silcadaan ku nimaadna sugnaanta waaxda socdaalka sawir hadday naga qaaday sinjigi waa sixi weys Soomaali kuma aqaana warqadda noogu saxiixa sidii malaygi badda mulqaa loo dabada mas-uul u dooda ma joogo dadkuna mooska ma roono mas-uulki meediyaha midiya laysku sahaaya mahaan u soo tabiyahay ummadda yaa ka mas-uula armagiciyaa matalaya ummadahay la madowda ma haddayow celihaya muhiimka yaa ka hadlaaya mas-uulkiyaan la adeecin masaajid la isku dilaayo maqaayad miina dhaxtaalo mashaqadaan heli diiday magafa meel la yidhaayo baddi madowga badneeday muranya moog aan la duugin maslaxa noo naqamayso haddow madow naqdamaanku maslaxa kuu geli mayso masiiba kaa heli mayso muslimku ha iscafiyaano makri ha la iska ilaalisho masaajidkaanyi rasuulka haddii la reed mari waaye adduunyadan riyadaahu rabti ka siisu ka waaye rabbi qoftaana rumayna rajaxumaa u dambaysa kariinka eebba hortiisa kafay inaad naqahayso kitaab qur-aana ku dhaaro ummadda kaalmaha siinin kadeed karoona aruurso kabaa'iraa laga sheega iyo kulayl koryo hoose kadaab manaan ku daraayo kitaabadan hala fiirsho ummaddi dhowr la dhahaaya ninkii dhaqaala ku siiya waxuu dhahaaya dhegayso inta kaleeta ha dhowrin dhulkaya dheefta ka boob haddou dhawaaqa dharbaax kabcada soo dhudhunko kabaa'iraa laga sheegay iyo kulayl koryo hoose kadaab manaan ku daraayo kitaabadan hala fiirsho qariiradan qorneeday cadow inuu ku quraacan 50 milyuun u dhamaatay adduunku qaab u yaqiinay webigu qayb ka maraayay baduna qaybta baraysa ilaahi qayb shaka qaadshay qaroof u tiil sidii qaanso qorraxduna kormaraysay haddaa la qaada rabaahe manaana la iska qabaynin intaan qayaama la gaadhin qabriha la isku aruursho afar walxaato minku shal minku taal cali cumarow afar walxaato minku taal ku taalsa afar kale tamel ku sheeg ku taal afar kale tamel ku sheeg minku taal magaaladayi muqdisho ya mataanaheedi meel ku sheeg magaaladayi muqdisho meel ku sheeg ya mataanaheedi meel ku sheeg armagangelyay lahaa jirte armaqaankii buuxay meel ku sheeg jirte armaqaankii buuxay meel ku sheeg gelyay lahaa jirte armaqaankii buuxay meel ku sheeg armasaawacay lahaa jirte armasaawacay lahaa jirte arnaga madoobe meel ku sheeg jirta arnaga madoobe meel ku sheeg jirta arnaga madoobe meel ku sheeg ay lahaa jirta arnaga madoobe meel ku sheeg
ilaaha jirta anaga madoobe meel ku sheeg waxa mashiiqdii mindhigoobeed armashiiqdii mindhigoobeed ya masaajidoodii meel ku sheeg mindhigoobeed ya masaajidoodii meel ku sheeg armashiiqdii mindhigoobeed jidoodii meel ku sheeg ilmihu waa dhaceen kaliyaha la sheegaaye macallimeen waxmeeriyo meen maxmeeriyo arlaga macaasho meel ku sheeg waxmeeriyo arlaga macaasho meel ku sheeg macallimeen waxmeeriyo arlaga macaasho meel ku sheeg midda kaleetood waxaa la yidhi muslinka yaacay muqdisho muslinka yaacay maalinbaas yaacay maalinbaas armadax salaaxa waa lahayn maalinbaas armadax salaaxa waa lahayn muslinka yaacay maalinbaas madax salaaxa waa lahayn haddaan sawa madowdaho midab kalay baa yeelataa dowdaho armidab kalay baa yeelataa haddaan sawa madowdaho midab kalay baa yeelataa qaafku taal afar walxaato qaafku taal qaafku taal arqataara waa la quusadaa qaafku taalo qataara waa la quusadaa qaafku taal aqandhanada waa loo arkayn oo qarxaysa waa la quusadaa waa loo arkayn oo qarxaysa waa la quusadaa aqandhanada waa loo arkayn arqandhanada waa loo arkayn oo qarxaysa waa la quusadaa midda kaleetood waxaa la yidhi dhulkaan mihii uu qaydh baadneed dhulkaan mihii uu qaydh baadneed oo qunfuulaan waa la quusadaa ayaanta xidki lama tegin dhulkaan mihii uu qaydh baadneed oo qunfuulaan waa la quusadaa qaydh baadneed oo qunfuulaan waa la quusadaa dhulkamay uu qaydh baadneed oo qunfuulaan waa la quusadaa midda kaleetood qorax maahay ka soo baxdaa ar uquntay waa la quusadaa ka soo baxdaa ar uquntay waa la quusadaa qorax maahay ka soo baxdaa uquntay waa la quusadaa midda kaleetood haddii qaayama qayliso dhulqaad maa waa la quusadaa haddii qaayama qayliso dhulqaad maa waa la quusadaa waxaase la yidhi dadki miyaa qalayl naaqdaa arqalbi qooyaan miya ilaahay inaad soo dhaweysaan siinaad sagootisaan ood macasalaameysaan maadaama uu dalkii ku socdo wabarku waa mahadsan yahay waa noo duceeyey asigana sidoo kale inaan ugu duceyno in ilaahay oo la garab gala amuurihiisa iyo howlaha oo ku socdo marka waxaan idin leeyahay mar labaad soo dhawaada aad iyo aadaadna ugu mahadsan tihiin wixii yaryaraayo oo cariir yahay amba waqtigoo maaragtay isku kala ordahay oo shaqo laga soo baxayna ka raalle ahaada waana mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh rasuulillah خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaalyaalow dadka akhyaarta ah ee hawsha noo diyaariyay waa mahadsan yihiin nin walbo xafladan loogu yeeray oo waqti soo galiyay waa mahadsan yahay annaga magaaladan aan degannahay walaalaan nahay dad meeshan ku wada noolaan nahay oo isduugo iska warqabo marka wixii nagu soo ziyaaday inaan iswargelino waa muhiim cali walaalkeena shalay cali u ahaa maanta laakiin mas'uuliyadu soo qaaday waana muhiim bulshada in dad hoggaan laga helo waa khasab dadka isku mid ma noqon karaan dad wax hogaamiyo
oo dadka kala tartiiro waxyaalaha isku haystaan marka cali annaga dhan wuxuu noo yahay mas'uul waana soo dhaweynaynaa waana ku ixtiraamaynaa sababtoo ah nin Soomaaliyeed wax noqday adoo wax ku noqday ma ahan cid kaliya iyo qoyska kaliya ama reer kaliya oo ka soo jeedo annaga dhan ixtiraam gooni ah iyo wuxuu nagu leeyahay yaani fadiilo gooni ah warkiisa in la qaato waxyaalaha asagu dadku la dhago in loo ogolaado nabiga kaleey salaatu wasalaam waa ka dardaarmay dadka mas'uuliyiinta macnaha in la karaameeyo raba macnaha si diintan ay qayb u noqoto bulshadan ay bulsho fiican u noqoto marka cali saaxiib ahaan arimo badan waa isla galnay haddana maadaama mas'uuliyadaas loo dhibay waana ka warhaay aniga runtii asagoo Soomaali joogo waana boosiyoon aad u fiican runtii dadka hadii dhaqanka ay waayaan oo siyaasiyiin ay waayaan bulshadaas waa halaagsamaysa marka waxaan leeyahay cali oo soo dhaw wabar cali asal ahaan waa u leedahay anagana waa kula shaqeynaynaa wixii aad nooga baahatid oo xagga dhaqanka iyo culture-ka ku saabsan waana soo dhaweynaynaa idinkana waa mahadsantiin waxa ugu wanaagsan waxay tahay in ilaahay aan ka wada cabsano ninkii anaga u lamrino ahna aan adeecno si horumar aan u sameeyno marka cali waa ku adeecsanahay waana kula shaqeynaynaa wixii anaga karaankeena waana ku mahadsantahay fataaye maciishootit ali umar ana handugtana waa fataaye maciishootit bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ku hadlayo gabdhaha Boros waxaan maanta halkan ku caleema saaraynaa walaalkay cali umar insha Allah cali umarow waxaad u tahay wabar bulshada Soomaaliyeed oo dhan ku nool Boros cali umar wadeenka farax way sida hore abaa marday walaalkay in sheegi isoo hor lahan duubay arlaabi haddana geekata barnaamij una ka dhawaayo hayna haddana kale masaaro hayna hadda waayo leebay wili bacala masaar way khaasatan iskaadreediyanka eedan ka faraxsan eediyad hadal may badhamay dadkii horeey qaybtii aan ku hadal fadhimay ku dahu doone geedkay roog oo qaabilsan dhinaca dhaqanka dhinaca kasta arday oo le oo mudun hordaan waa isku ogahay inuu inta ku hadala haddana may dheer ilaa arday aan kelmadeen ta ku jeedi kelmadaas quraanka arday oo ka saabsan mulkiga Ilaahay leebiyow marka taas dartiya yaa ka gaabsida iyada ma santiin ana qaybtay ma in laafay jiifka laafay waana ma santiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الدوركي أضياشي هوري وعلي من أفقابا هدي هذا الكلام وهر مرة وحل الله مرحبا وإنه أسوي شيء سبوا كوبي مركو هوري وحان آدي السلام عليا وأسول وين هيا حفلة دان شرفت له ذاتك الدياريي oo nagu soo casumay oo dadka inta leeg meesha isku keenay horta ayaga ayaan marka hore u mahadcelinay علينا ومر عمرنا هذا أصغوا عن وبرنامج حق الله قدر بارك وبر هرتيها وهو صاحب كجارة وهو نبضون كنجي مركي وحلا شو قبته أما وحي مادان ضدك كلا حلية ما شاء الله هذا الدرجة كلو وين بنوتي ونوس سيادي إن شاء الله وحنا نقول مركو قهر يساليه إلهي وحنا قبريها يا إلهي وحلودي ومسؤولية ده مسؤولية عيار ماهن وواحد إلهي نوفضه إلهي إنه لا قرب قاله قد عدالة ما كنتم هي بالعلم وحنا كنا إلهي قواتنا وكحفظ الشيطان كيو أجيس أدي أربعة وجمها النقايا شرفت يعيش كمان شان ذات كان لوجو كاني هذا سجل أول بوابر نوع هذا الوابر كي أو بوروس لوجو يمدوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف كله أو أهل أو قرابة نما يصومار نما إنتاز بأسوي مذي أو كسو قريب على حفلة دان قفل بدنا إلا هذي واحد أسود ديسي حفلة دان وانا قبضان أو قرحسن إنه كقريب قشو أو يكم واحد ماشي كنعي أوقاته لأن يرد كسو قريب شيء سواء بشيء ويكون مهتسيين وأنا ذا شرف كودله reer Boros waxaan uga mahadcelinayaa wanaag ay wadaan oo ku soo dhaweynayaan wabarka ay u dhigeen xafladan oo ku soo dhaweynayaan way ku mahadsan yihiin dhalinyarada abaabushay ee shaqadan ka soo qayb gashay oo rag iyo dumar leh waa u mahadcelinaynaa khayr Allah ka siiyaan leena wanaaga ay sameeyeen
wabarkana waxaan leenahay dadkaana awal ma aqoon hadda qofti inta ka taga wabarkan ku degaa how leeyahay asagana ilaahay la garab galo alana hawfudo hawsha oo qabanayo marka waxa waaye qofkii Sweden ka taga waxa uu leeyahay wabarkiya iga horeeya asagaan ku sii degay ilaahay hawfudo hawsha qabanayo mas'uuliyadu weyno hayaa leeskama dooranay wixii loo doorto qaba kaligiis meesha la dooranayo raga jooga la dhashay oo la sinan wixii loo doorto qaba wanaag lagu doorto ila sharafka lagu doorto leeyahay ilaahay waxaan uga bareynaa muraadadiisa Allah u fududeeyo meesha hawsha qabanayo ilaahay ha u fududeeyo muraadadu leeyahay Allah ka sahlo annagana ducadeena Allah oo aqbala asagana wanaagiisa iyo sharafka oo ku soo gaaray heerkan ilaahay ha kordhiyo wanaaga oo leeyahay waa garan karnaa dadka marka la dooranayo waxa lagu doortaa shakhsiyad ku jirta iyo sharaf oo leeyahay iyo xushmad oo leeyahay oo ka muuqata la dooranaya qaraaba inta isu timaada ninka ugu ducufsan ma doorahayaan waa jiraan dad suuqa laga soo qabsado kaas qiimo ma la sheegi mayno tixgeli mayno kaas dhibaatada jirta waxay tahay dhaqamka waxa la yiraaho waxa ummadda Soomaalida naafeeyay oo ku dhimatay waxa dad suuqa laga soo qabtay waxa la rabaa qofku inuu sharafkiisa dhowranayo hadduu falan ku shuban noqdo qofkaas waa qiimihiisa ku dhinteen waxaan u baahanahay wabarka nin sharaf leh waana mahadsan yahay waana ka muuqataa wixii loo soo doortay iyo heybada uu leeyahay horaba isu naqeeno anigu hadda soo dhalinyaro soo joogayna waa qiimay oo meeshu ka soo baxay iyo ku soo bilaabay wixii dhan waa la socdaa waa mahadsan yahay wabarku ku soo dhawo waraadan ku wareejinaya marka aniga dadka dhalinyarada meesha xubsana waa mahadsan yihiin salaamu ala rasuulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abad qabaqabayaasha xafladda ka soo qayb galayaasha dhamaantiin gabdhaha siyaasiyiinta saraakiisha ciidamada dhalinyarada culimo diinka dhamaantiin waxa idinku salaamaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sharaf weyn ay tahay runtii sida milgaha iyo maamuuska leh leeyahay soo dhaweeyay magaalada tan oo reer Boros ay ugu soo baxeen runtii dad badan oo hadda maadaama ay tahay maalin shaqo waxa jira dad badan oo hadda meeshan qabaqabayaasha xataa kamid ahay oo soo haleeli waa inay yimaadeen iyaga laftirkooda iyagu yimideen la mid tahay waana ka qabaa dawladda aad iyo aad u mahadsantihiin dadkii meeshan ka hadlay hadalba ma harin runtii hadalka xoogiisi iyo qiimihiisi idinka sheegteen waxaan rabaa kaliya inaan 2 iyo 3 aan isdul taago aniga runtii hadda Muqdisho ka imiday Muqdisho waa xuduntii ama madaxii Soomaaliya waaye marka haday Muqdisho oo hagaagtana waxa rajo weyn laga qabaa in waddanka dhan hagaago hadda marka qofka Muqdisho markaysan tigin looga sheekeeyo balaaya dhacda la leeyahay social media kaliya laga arko waxa sida loo sheegayo uma jiraan runtii Muqdisho ma dhiman dhibaatada iyo sida wax loo sheegana hadda waxaas uma wada jiraan saaka warqabtiin waxa waaye waa tii isfaham laga gaaray doorashooyinkii la isku hayay marka ilaahay aan ku mahadsan ثم أنت دلاشيو هوشاس جهدك بدن جلسنا وهم هذا علينا وأنا كو أمانينا رنتي وأنا أرجعنا إن لا دمستر وحلو قبل ما أنا دمستر نورجعنا مركب مقدشو رنتي وحاكس السعودية إذا لفتر كذا ساس أي تاي أو دبعت حوجي ماركته أو دين على السياسة الجديدة أو كجري هدنا وحيل هذا هم أما همي وين أيان ماركتها لجودو كلاتو أو إصلاح قلب الشيء دبولسه runtii aniga hadda waxaan ogaay iyadoo 5 wado oo waxna dhamaadeen waxna ay dhex socdaan oo laamiyo la dhisaayo qaar xariga laga jaray qaarna waa dhinaayeen hadda maalin hore waxaan arkay qaybtii caafimaadka oo fayadhoorkii oo la furaayo awalna gobolka Banaadir koonfur galbeed odayaal dhaqan oo tageen oo maaragtay madaxda maamuladaas la fadhiistay runtii Hirshabeelle iyada beledweyne waa tagnay oo maaragtay iyada hadii la yiraahdo Hirshabeelle labada gobolba wixii uu maaragtay naga tambadasha daran maahane wixii dhadhalo aan xalli karno waa xallinaa haduu Ilaahay yiraahdo marka ka dhaqan ahaan wax hadda oo culaysa oo taagtaaga ma jiraan
wax walbaba sidii loo rabayo noogu socdaan hadduu ilaahay yidhaah waan rajahaynaa inaan casharo badan aan ka barano dhaqanadii hore oo isinadii iyo maaragta iyo hogaamiyaashii hore wixii talaahoy maaragta aan laga qaadan karan aan ka qaadano marka waxaan rabnay inaan macnaha aan aadno dhaqan suuban oo siyaasigu uusan asugu xukumaynin dhaqanka siyaasigu uu dhaqanku xukumaayo sababtoo ah markii uu dhaqanku tooso ay siyaasaduna toosaysaa saasaan aaminsanahay marka waxaan rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan bulshadu aqoon-yahanadu ay doorkooda qaataan dhalinyaradu doorkooda qaadato ay soo saaraan cid hoggaankaas bulshadaas inay hogaamiso oo ay wada sax ku hogaamiso heli karta laakiin haddaan inagu odayaasha inay wax yar oo shilimaada raadshaan dhalinyaradina ay isdhahaanba maaragta doorkiini ma banaana doorkooda bannaan inay dhaqan naqdaana u bannaan inay siyaasadda hogaamiyaana u bannaan waxaan u bannaanayn dhalinyarada ma jiraan waqtigoodaaba la joogaa marka waan soo dhaweeynaa waan rajeeynaa inaan wax isbedelka hadda socda wax badan laga dheefi doono hadduu ilaahay yiraahdo oo dib u dhis leh oo haddaan doorashadu ay noqoto mid ay dadku waxa ay iyagu doonayaan ay doortaan oo aan wax loo yeelin hadduu ilaahay yiraah waan rajeeynaa insha Allah isku duubni badanna waa ka jirtaa oo muqdisho iyo hareeraheeda hadduu ilaahay yiraahdo waa la iska warqabaa insha Allah taasaan leeyahay midda kale waxaan rabay anoo jaaniskan ka faa'iideysaya inaan hambalyo taageera aan u diro ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo runtii u bareeray inay salka u dhigaan doorashadii la isku hayay iyagana waa taageeraynaa ilaahayna waxaan uga rajeeynaa inuu ilaahay ku asturo oo inta dhiman ilaahay uu dhameystiro hadduu ilaahay yiraaho si guul ay ku dhamaato taas marka halkaas uga tago waxaan rabay iyadana inaan kelimad ka iraahdo iyadana wadankan aan joogno oo aadna loo kugu soo dhaweeyo runtii oo Sweden iskaadareefiyankoo dhan hadda dadku waa ogyihiin Sweden waa wadanka koowaad ee runtii Soomaalida si mug leh oo miisaan leh soo dhaweeyay iyadana waa uga mahad celeynaa soo dhaweyntooda waxa kale tooday hadda xatee ku howlan yihiin Soomaaliya taageerada la siiyo wadanka labaad waaye Sweden oo gudaha ay aad u taageertaa hadday ahaa lahayd inay maaragtay hay'adaha qaramada midoobay marsiiso ama ay si toos ah u bixiso mashaariic badan ay ka wadaa xagga iyagana waa uga mahad celeynaa waxaana leenahay maaragtay dadaalkiina iyo waxa aad bixiseen iyo saad noo soo dhaweyseen waa ku mahadsantihiin waan idin ognahay hadduu leeyahay abaalkaas marka intaas haddaan intaas uga baxo waxa waaye hadalku waqti dambe la joogaa dadkuna waqti waxa waaye xilli shaqo lagu jiray dada hadda shaqadii aday ka soo degeena hore ka yimiday meeshii ay wax yar madaxa dhulka dhigi lahaayeen waqtiguna waa fog yahayo salaadii waxay naqatay xilli oo aan maaragta naqatay maalintii habeenka kala batay sida caadada ahaydba waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin sharaf iyo milgaadna leedihiin wax allaala wixii karaama iyo dardaaranahay iyo wixii la sheego dhan waa qaatay hadduu ilaahay yiraahdana Soomaaliyo dhana isugu hela ma ihi anigu jufo ma ihi qabiil gaara ma ihi koox gaara Soomaaliyaan ahay hadduu ilaahay yiraahdo isla si iyo si siman oo ayaana dadka inta degan iyo kuwa jira Soomaaliya isla si aan ugu adeegi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo si volunteer ugu adeega insha Allah waana ku mahadsantihiin sida aad soo dhaweyseenna marka koobaad mar labaad mar saddexaad waa ku mahadsantihiin hadalkan waa soo gaabiha insha Allah maadaama waqti xoogay lagu jiro meeshuna ay tiidkii hadda maarta in la gaaraba ay suurtagal tahay xilligayni aad iyo aad u mahadsantihiin ajri xasanaad baa Allah idinka sii inta ka soo qayb gashay inta ima weysaba isla si u mahadsan yahay dawladda waana mahadsantihiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka magaaladan horta Allah nagu xafido awlaadana maaragta Ilaahay noo xafido ilaahayna awlaad baaraha ka dhigo ilaahay awlaad baaraha ka dhigo kuwa diin leh oo darajo leh oo waalidkooda aqoonsadan Allah nooga dhigo
meesha meel halis waaye islaamanka iyo ilmuhu way isleeyihiin marka dad is aqoonsada oo wax isla qabsada iskuna wanaagsanaada Allah naga wada dhigo kuwa isgargarta oo isgarab degan Allah naga dhigo ilmaha iyo dhamaantaynaba Allah nagu xafido meesha ilaahay nagu xafido diinkana Allah u sahlo waana mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh